waxaa si rasmi ah magaalada Davos shalay loogu saxiixay jaartarka ama axdiga uu ku howlgeli doono golaha nabadda qasa kan loogu yeero The Board of Peace ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump asaasay fikirka inuu isaga laf ahaantiisu hogaamiyo iyo yagleelkiisuna isla isaga ka yimid golahan oo haatan lagu warramay inay goor horeba ku biiristiisa aqbaleen dalal tiradoodu gaarto 35 wadan waxaa si wada jira axdi hawleedkiisa u saxiixay Mareykanka Morocco iyo Bahrain saxiixa saddex geesoodka ah oo ka dhigan in howlaha goluhu si rasmi ah u bilaabatay howlahaas oo lagu qeexay dib u dhiska qasa iyo korjoogteynta maamulka kumeel gaarka ah ee qasa loo dhisayo iyadoo gole nabadeedkan uu Trump ugu yeeray kii abid ugu meeqaam sareeyay ee la asaaso la isweydiinayo haddii danta loo yeegleelay tahay mid salka ku haysa in lagu weeqo ururada caalamiga ah ee dunida sida hay'adda qaramada midoobay oo ay u muuqato inuu habdhismeedkeedii iyo mas'uuliyadaheedii shaqoba isku darsaday ayaa haddana waxaa dhinaca kale su'aalo badani dul hoganayaan xubnaha golaha qaybtood sida ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo la xaqiijiyay xubinimadiisa halka uusan guddiga qayb ka ahayn hoggaanka nidaamka Falastiin tani waxa ay su'aal gelinaysaa sida ay cadaali u noqon doonto howlqabadka golaha ee qasa dhinaca kale oo yididiilo leh ayaa in howlaha hortebinta leh ee golaha horyaala u muuqdaan kuwa goor horeba ka heelinaya qorshayaashii Netanyahu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo dhabu dhaqangalka heshiis nabadeedka qasa waxaa muuqata in ra'iisul wasaaraha Yuhuuddu goor horeba ku fashilmay dib u dhigidda wajiga labaad ee qorshaha xabad joojinta kaasoo sidii heshiiskan bilowgii loo saxiixayba wararku tibaaxeen inuu isku hawlay inaan dhaqso loo dhaqan gelin marka laga yimaado culayska Israel ka wajahayso in Hamas weli ku adkaysanayso inaysan hubka dhigin haddana mid kale oo ay caqabad soo kordhaysa u arkaan ayaa lagu sheegay in asbuuca dambe si rasmi ah loo furi doono marinada Rafah taa oo iyana aan u hiilin doonin qorshayaashooda carqaladaynta ah in Turkiga iyo Qatar xubno ka noqdaan golaha nabadda qasa ayaa iyana ah mid aan kaalmaynayn dadaaladii xooganaa ee Netanyahu ku bixiyay ka hortagga in labadan wadan door rasmi ah ku yeeshaan qorshaha nabadda qasa mid kale oo iyana dhaqangalkeeda laga war dhowrayo Netanyahuna qiime kasta ku bixinayo ka hortagga hirgalkeeda ayaa lagu sheegay qorshaha Turkiga ee ah inuu qayb ka noqdo ciidamada caalamiga ah ee nabad ilaalinta qasa taas oo iyana aan suurtagalnimadeeda meesha laga saari karin xoguhu waxa ay warinayaan in golaha xukuumadda nidaamka Israel si weyn ugu kala qaybsan yihiin qorshaha nabadda qasa ee Trump hormuudka ka yahay waxay ugu yeereen mid aan u helinayn danaha Israel xitaa qayb ahaan wasiirada nidaamkaasi waxa ay isniintii dhaweyd soo jeediyeen in la joojiyo howlaha korjoogteynta xabad joojinta ee ay ku howlan yihiin ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigooda ku yaala koonfurta Israel walaaciyadan istaba joogga ah ee nidaamka Israel waxay muujinayaan inaysan dhab ugu qanacsanayn dadaalada nabadda qasa dhaqangelintooda loo howlgalay ee jaalkooda Donald Trump hormuudka ka yahay